shanta dal ee ugu hablaha qurxoon qaaradda Afrika. Kaalinta shanaad waxaa soo galaya dalka lagu magacaabo Nigeria, ahna dalka shanaad ee ugu hablaha qurxoon qaaradda Afrika. Hablaha ku nool ayaa waxaa lagu qiyaasaa 101,818,705. kaalinta afraad waxaa soo galaya dalka lagu magacaabo Ethiopia, waana dalka afraad ee ugu hablaha qurxoon qaaradda Afrika. hablaha ku nool ayaa waxaa lagu qiyaasaa 56,156,804 hablood. kaalinta saddexaadna waxaa soo galaya dalka lagu magacaabo Eritrea, waana dalka saddexaad ee ugu hablaha qurxoon qaaradda Afrika. hablaha ku nool ayaa waxaa lagu qiyaasaa 2,931,287 hablood. kaalinta labaadna waxaa soo galaya dalka lagu magacaabo Soomaaliya. hablaha ku nool dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu qiyaasaa 6,064,604 hablood. kaalinta koowaadna waxaa soo galaya dalka lagu magacaabo Egypt ama Masar, ahna dalka koowaad ee ugu hablaha qurxoon qaaradda Afrika. hablaha ku nool dalka Egypt ayaa waxaa lagu qiyaasaa 45.9 milyan.